kulan wacan daawadayaashana qiimaha ee qadarinta lahow meel walba aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo falanqaynteennii dhanka suuqa kaliibsiga ciyaartoyda oo aalaba maalin walba aan idiin soo gudbinno waxyaaba la hadal haya suuqa kaliibsiga ciyaartoyda aalaba falanqaynta waxaa igu heliyay saaxiibkay Zakariya Cabdi Maxamed Zakariya mar kale soo dhawow dabcan waxaan isleenahay waa maalin kale iyo suuqa iyo dooqyo kale intooda kooxaha qaar durba ay sameynayaan waa dooq kale waaliya marka aan fiirino laba dalab in 9 milyan oo gani kooxda Arsenal loogaga soo diiday Declan Rice haatan 100 milyan ay gaarsiinayso bal xaaladaas nooga sheekaysaa ka suuqa digri aad u dhawahay Arsenal waxa moodaa inay ku dhageen Declan Rice oo xitaa qorshe kale uusan u diyaarsanan oo kaliya 1 iyo 2 iyo 3 bo targetkooda Rice uu yahay mar haddii laga diiday 70 milyan pound haddana lacagta ay gaarsiin 9 milyan pound laga diiday oo waliba xitaa 75 bixina 15 gadaalna ka dibeena West Ham waxay taagan yihiin waxaan u baahnay qiimo ugu dambeyntii imaanayo 100 milyan pound marka waa lagu kala qaybsamay mid waxay tahay Arsenal maxaa u diiday options kala sameystaan suuq ka baaday goobaan waxay heli karaan ciyaartoy kale oo risk qiimo jaban tan kalena waxay tahay nin qad dhexe ka ciyaaro kubad aan caawinin gool dhalinaynin oo lacag intaas laga soo bixinayna waa su'aal taagan mid kale oo saddexaad waxay tahay ninkan qandaraaskiisa gabagaba ee June 2024 ku egyahay marka dhan walba waxa la West Ham faa'iido qabto laakiin Arteta go'aanku ugu dhagan yahay Declan Rice Britain inuu ku faa'iido lama og laakiin hadda xoogaa waxa moodaa inuu quite risky si markii loo fiiriyo boskas Arsenal waxay haysataa Soomaha laacibka la yiraahdo Thomas Partey kaasoo laftirkiisu la filayo inuu bixi karo marka waa arin ay mar walba daruuri u tahay boskas la helo hadiyad waxa moodaa isbedel xoogan qadka dhexe Arteta inuu sameeyo rabo Garner Shaka uu tagaya Partey duu baxo wuxuu rabaa inuu soo qaato Rice ciyaartoy kale baad goob ugu jira marka waxaan isleeyahay qorshaha macalinka asiga yaqaan maamulkan aad ugu garab istaaga maadaama Arsenal uu soo nooleeyay 7 sano kadib uu Champions League keenay walow taageerayaasha Arsenal xataa qaarkood ay leeyihiin Rice lacagtaas uma qalmo haddana Arteta go'aanka waxa moodaa Pep oo dhinac kaga eegay Guardiola kama marka qaar ciyaaryahan ku dhago in loo keenay jirto wata arinta kale oo Victor Osimhen ka waran ayadana 150 milyan Chelsea waa mar kale ciyaaryahan madoowa iyo lacag badan oo suuqa ay gelinayso hadiyad Chelsea waxay ka faa'iideysanaysaa ciyaaryahankii Napoli asira qabteen marka hore ma qanacsanay markii la dhaay waxa baxay macalinkii Spalletti oo ka caawiyay kooxda Real inay ku guuleystaan asagu wuxuu dalbaday mushaarko dhingarna uu leeyahay Real u qaaday isku wadaad uu keenay Serie A gool dhalintii u qaaday Kaaba Collier wuxuu marka mushaarko dhan u baahanahay way ka hor imaadeen marka maamulka saadartii asna wuxuu dalbaday in la fasaxo qandaraaskiisa wuxuu ku eegay June 2025 waxay hadda ku dalbadeen kooxdii bixinaysa 150 milyan ayaa laga gadaya marka hadda Chelsea waxa leeyahay dabcan waxay isku diyaan inay isku awoosh qaabka ku qaadan la Osimhen inkastoo culeys dhaqaale Chelsea oo aysan ayaga haysan laakiin kaga imaanayo UEFA Premier League haddana waxay Chelsea fiirinaysaa suurtagalnimada ku qaadan karta ninkan wata saxiix suuqa kaliibsiga ciyaartoyda dhinaca horyaalka Sacuudi Carabiya laacibin badan oo hadda aaday dadkii ugu dambeeyay yaan uga tilmaami kartaa Saudi League wuxuu noqday hadda ay horyaalka marketka aad loo hadalaya Europe kaliya transfer kama noqonin N'Golo Kante saacadii ugu dambeeyay ku biiray kooxda Al-Ittihad oo dabcan 100 milyan lacagta euro 4 sano contract uu saxay Hakim Ziyech kooxda Al-Nassr gala asigana oo Ronaldo si uu caawiyo kubadda garbaha ka keeno goolhaye Mendy asigana Edouard Mendy Chelsea uu ka tagay wuxuu ku biiray kooxda Al-Hilal xitaa tijaabada caafimaad mara personal agreement uu dhacay waxa la markii heshiisadan Sacuudiga Chelsea lacagaha badan ka faa'iideysaa xogaa lacag yarna way kale ciyaartoyda qaarkood inkastoo kuwa free kaga tageen haddana culeyska mushaarka Chelsea in badan ka yaraanay marka Chelsea Sacuudiga waxa la dhihi karaa waaba faraj u imaado waaba yaa hadda miiska saaran oo laftirkooda la dhihi karaa horyaalka Sacuudi Carabiga aad doonaan hadda waxa aad iyo aad loo hadalay xataa Nicola Barella Inter Milan u ciyaara waxa la leeyahay Sacuudi Carabiga laga soo dalbaday lacag badan miiska saaran waa mid kamid ah daayiro aad mustaqbal fiican kula qaar Manchester iyo kooxo badan baadi goob ugu jiraan Saul Niguez oo kale asna Atletico Madrid ka tirsan waa ciyaaryahan kale asna Sacuudiga inuu aad laga yaabo Alvaro Morata kale asna Atletico qandaraaska hal sano ka harsanta Sacuudiga laga soo dalbaday Aubameyang safku ku jira wuxuu sugaa heshiis inuu dhaco Wilfried Zaha waxa la hadaa koox soo weysid Al-Nassr imaa lacaga ku taalo marka ciyaartoy badan aad digir meesha sii jeedaan wata marka la isku soo duubo arintan oo dhan faa'iidada ugu jirta horyaalka Sacuudi Carabiga maxay tahay laba mid bay ugu jirtaa kooxihii oo dhismaayay iyo horyaalka dhanka TV-da publishta ay helayaan mid labaadna waxay tahay Sacuudi yool fogay leeyihiin 2030 ka xirmaan koobadu inay martigeliyaan marka waxay iska dhigaan horyaal furfuran dal furfuran ciyaartoyda ajaanibta keenayaan taasoo markay miiska dabcan tagaan campaign-ka martigelinta 2030 in badan ka caawin karto wata maxay u dhimi kartaa dhinaca kale marka loo fiiriyo faa'iidada haddaan aragno Sacuudi ay u leedahay dhinaca kale ciyaartoyda maxay u dhimi kartaa annagoo og in ciyaaryahanada ay ku tartamaan rikoorada yaala Europe
sidoo kale abaalmarinada taala Yurub dhanka ciyaartooyda Yurub marka fiirno culays ay ku tahay ninkii ka soo tago wuxuu weynaa Champions League weynaya Ballon d'Or waxyaabo badan weyn karaa laakiin taas waxa ka sii daran ciyaartooyda Sacuudiyaanka home ground players dhibaatada ay qabaan kuwii localka ah ay soo bixi lahayd kuwa hore seeraad u ciyaarayaba hadda wax ahmiyad siinay mal waxa laga yaabaa hadda Al Nassr Al Ittihad iyo awlarna u joogan line up 12 ciyaartooy Sacuudi ah wadankana uu ku fiicnaa dana uu aado koob adduunyo u soo baxayeen koob Aasiya qana laakiin hadii ajaanib lagu soo guro waxa laga yaabaa isla ciyaartooydii Sacuudi Carabiga bandhiga sameyn lahayd in meesha ay ka baxdo wata aad u maasantahay gudaana daawadayaal intaas aan jecelnahay inaan ku soo gabagabayno falanqayntii yar aynu ku sameyn dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda Zakariya Cabdi Maxamed aan u mahad celinaya aragtidiina qaybta hoos waa nagu reebi kartaan mahadsanideen